magacaygu waa Dr. Maxamuud Axmed Faarax oo ku magac dhalo Bowle. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد مقعي هو حسين نونو عبدي وحنا هاي دكتور خاصة متخصص عذرات عروقته COVID-19 waa cudur ku dhaca xayawaanaadka marmarna u soo gudba laakiin marmarka qaarkoodna xumaada oo u gudba sanbabaha oo keena bronchite wax la dhaho yani iyo pneumonia oo yani pulmonite isagana keena u gudba laakiin markiis hore waa cudur sida hargabka ah waa flu disease oo kale. xanuunka la yidhaahdo coronavirus oo ah xanuun muddo badan aan hadalkiisa aan haynay oo waxyaabo badan ka bixinay. marka coronaviruska ayaa wuxuu yahay xanuun uu keeno virus asalkiisina wuxuu soo baxay waqtigan December 2019 saasaa loo magac daray coronavirus ama COVID-19 waa disease-kan waana cudur hore u jiri jiray ma aha mid hadda soo bilowday 1960 uu soo gaaray waxaas 2002 oo kale ayuu yimid isagoo la magac baxay magaca SARS Middle East xataa 2000 macnaa 14kii meelahaas oo kale kadibna midkan dambe ay yimid isaga 2019kii ayuu soo baxay waana mid muxuu ahaa loo yaqaan new waa mid cusub waaye usually waxyaabaha uu ku dhaco dadka ayuu ku dhacaa asalkiisana wuxuu naga soo gaaray magaalada Wuhan dalkan la leeyahay China dhicitaanka oo marka uu xanuunkan uu keeno waxaa kamid ah viruskuna waa nooc kamid ah noolaha Ilaahay abuuray subxaanahu wa ta'aala viruskuna waa wuxuu leeyahay inta badan waxaa loo kala yaqaanaa virus oo RNA wato ama DNA wax la yidhahdo wato marka kan annaga hadda ummadda dhibka dhan u geystay halkan waa nooca RNA-da ah waa bahdaas uu kamid yahay familkaasi inta badanna waxyaabaha uu ku dhaco waxaa kamid dadka ayuu ku dhacaa transmissionkiisa inta badan wuxuu ku yimaadaa qofkii oo qofka distancing u jiro 1 mitir ka yar wuxuu ku yimaadaa qofkii oo haddana macnaha oo ku qunfaca qofka kale qofkii haddana aan maaskii wadanin marka intaasoo idil transmissionkii oo uu ku imaanayay macnaha qunficii hindhistii iyo wixii lamid ah iyo taabashadii qofka uu lacalla uu qofku meel uu taabtay oo kale qofka xanuunka qaba kadib qof kale uu ka damaado uu taabtay oo kale waa dhacda idan saas oo kale marka saa darteed marka uu ugu horeyso xanuunka kan marka uu ku dhacayo qof bini'aadamka meelaha uu sida gaarka ah uu interesting u sameeyo ku dhaco waxaa ka mid ah qaybta dheefmareenka ah neefta marka waa saa darteed waxa uu dhib u geystaa viruskan maadaama uu wato sida kaadhka hoteelada lagu gala camal ID wuxuu wataa oo ku yaqaan uu ku dhex geli karo oo xilka dhan kala wareegi karo macnaha unugyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka abuuray qaybtan oo neefmareenka ah marka qaybihii ayuu dhex degaa unugii ayuu ku dhex buuxsamaa wax alla wixii marka oo proteins ah iyo nolol u baahnaa wuxuu ka qaataa unugii kale oo qofka hospitalka ah oo qofkii bini'aadamka ah ayuu ka qaataa wuxuu la wareegaa command of the chief camal wuxuu la wareegaa amar wuxuu ku bixinayaa go'aankii oo dhan unugii dhex gala ayuu bedelaa isagana marka meesha awoodiisa ka talin waaye horta waa hargabka oo kale waaye qof walba ku dhaca ka dhici kara da' kasta leh marka waxa waaye wuxuu u daran yahay dadka waayeelka ah sida hadda kan la arkay waxa weeye haddana dadka oo jiran oo jirooyinka qaarkood qaba sida oo maaragtay pressureka dadka sokorta qaba dadka kansarka qaba dadka qaba maaragtay sida cudurradan AIDS oo kale iyo dadka TB-da qaba dadka neefta qaba dadkaasaytu waxaa u malaysaa inuu halis u yahay uga sii halisan yahay dadka caadiga ah dadka waayeelkana xoogaa maaragtay marka cudurradaas ama dadka sigaar iyo cabka badan ahaa markii hore dadkaas waxaa u malaysaa inuu si maaragtay oo maaragtay gaara u saameeyo oo u nugul yihiin saasaa hadda soo caddaatay waxaa kaloo caddaatay in maaragtay markii statistic la sameeyey oo la arkay wadamadii uu ku dhacay yani dadka madow oo yani inuu xoogaa yar oo afrikaanka ah inuu ku badna sida Mareykanka oo kale sida ay sheegeen meelaha maaragtay oo New Jersey iyo meelaha la sheegay New York iyo
dadka madow xoogaa yar inuu maaragtay vitamin D-ga ku yar baa la is yiri iyo Sweden iyo marka waxa waaye dadka vitamin D-ga uu ku yar yahayna isagana si maaragtay oo gaar ah uu u saameeyay yani marka waxa waaye arrimahaas soo baxay hadda oo la arkay in vitamin D-ga uu very essential u yahay difaaca oo uu ka difaacayo viruskan iyo dhibaatadiisa. waxyaabaha marka badan uu sameeyo waxaa ka mid ah inuu aad u jijibiyo waxyaabahan la yidhahdo alveoluska oo ah meelaha ugu hooseeya ee neefta iyo oxygenka iyo gaaska isku kala bedelaan. marka meeshii waxaa dhacaysa inay burburto. markay burburto waxaa abuurmaya inay yimaadaan waxyaabo liquid ah. marka saa darteed waxaa dhacaysa in liquidkaasi uu meesha buuxiyo isla markaasina waxaa dhacaya markaasi qofkii waxaa ku adkaanaysa inuu neeftii ay dhifto. difficult in breathing waxa la yidhahdo waa sidii ugu horreeya oo lagu arko waaye. kadib waxaa dhacaysa marka qandho tiro badan, waxaa dhacayso waxyaabo kale oo haddana oo qofkii muruq xanuuna ku dhacayo, dhuuntii baa go'aysa, qandha imaanaysa, meel kasto waxaa xataa qofkii ka tagaayo urintii, caraftii intoo idin. marka waxyaabaha marka qofka lagu garan karo waxaa ka mid ah intaas. marka qandhadiyaa ka mid ah, neeftii qofkii dhibta, isla markaasna qofkii markaas wuxuu usii gudbinaa qofka kale. so as a doctors or specialist in public health marka oo WHO waxaan dadka kula talnaa mar waliba waxyaabaha ah in qofku mar kastaba every 20 minutes inuu isticmaalo sanitizer. waxa yidhahda sanitizerku waa kan oo kale, qofka kan oo kale inuu haysto uu isticmaalo oo markaasi gacanta saas ku yidhaahdo kadibna uu iska marsado, aad u taxadiro. muhiim ah weliba in faraha la dhexgeliyo quantity la wareeyo. hadduu qofka awoodi karin xataa waxaa muhiim ah anaga kula talnaa saabuunta inuu isticmaalo, saabuun badan ay jirto inuu isticmaalo oo gacanta aad u nadiifiyo. waa qofka inuu mar waliba uu isticmaalaa maaska marka la isticmaalayo marka ugu horeyso waxaa la sameeyaa dhagaha la soo geliyaa, dhagaha markii la soo geliyo haddana kii kale la soo geliyaa. waxaa laga taxadiraa inaad taawatid halkaas. marka laakiin dhibaatada hadda jirta waxay tahay maaska saas ugu xirto waxaad moodaa inuu xoogaa qofka insha allahu tacaala uu ka safe yahay inuu waxa ay soo gaaraan. waxyaabaha marka ugu darana waxay tahay marka qofkii distancegii community aan joogno haatan aan ku dhex jirno magaalada aan joogno Australia oo kale inta badan ma ixtiraamaan distancegii waa ku hooseeya. waxaadba moodaa dadka in la yiri waa adinka ma idinku dhacay oo kale. waxaa kaaga daran haddana waxay qaataan dadkii maaska qaataan, maaskii ay qaadanayeen sidaas isagoo ah. marka waxay sameynayaan qofkii maaskii waxaa laha qaato dhibka dhac marka waxa uu qaadanaa qofkii wuu xiranaya haddana saas uu leeyahay. marka haddii aad aragtay isbii marka dhex socotidoo kale waxaa arkaysaa dadkii oo dhan oo maaskii wato laakiin ku ah hadda hadlaaya. marka wax ujeedada u qaateen malama garan. qaarkood way iska furayaan halkaas isaga wataan. wax marka oo dhibaatada jirto waxay tahay ummadii wacyigelintan tirada badan leh dhaqaatiirta iyo culimada islaamiga ah iyo dadka waxgaradka dhan ay soo jeedinayaan waxaan moodaa inay macnaha ay waxba kale ay ka qaadeen. maxaa xiga marka cudurkii marka aad u fidaya, spread u fidaya, caruurta ku fidaya, dadka way ku fidaya. dadka marka riskiga u ah waxa ay tahay dadka da'dooda ay xoogaa ay weynaatay oo vulnerable ah ama dadka ay macnaha cudurrada qabaan sida qofka hadduu diabetiska uu qabo kale, qofkii hadduu blood pressure uu qabo uusan controleynin, diabetiskii qofkii uusan controleynin, haddii qofkii dialysis uu sameeyo oo kale, haddii difaaci uu iska hooseeyo oo kale. marka many factors ayaa jirta marka sabab u noqonaysa in cudurka ku sii fido. sidaa darteed dadka marka waxaan kula talinaa waxyaabahan lockdown-ka ah waa wax macnaha dadka u dan ah inay joogaan guryihi. sidii haddaa fiiriso oo kale meesha aan joogno oo kale deesno macnaha laba qof ama in yar ayaa xifdinaysa distancega inay ay ka taxdirto. inta kale dadkii haba isiinayaan, dadkii way isdhunkanayaan, dadkii way issalaamayaan. waana waxyaabaha ugu badan ee germs uu ku fido waaye. salaantii ku fidaa, dadku ummadda way salaantaa. waxa waaye vitamin D-ga cuntooyinka dhan waa laga helaa. badanaa waxa u badan wixii oo xayawaanka ka imaada waa laga helaa, sida malayga oo kale waa laga helaa, saliidiisa iyo loosaska iyo waa laga helaa vitamin D-ga. waxa waaye laakiin waxa waaye qorraxdana waa loo baahan yahay. qorraxda in maaragtay oo qofka markuu jirka galo qorraxda ayaa maaragtay aad ugu fiican in maaragtay la soo dhigo si qorraxdaasayto ay maaragtay ay ugu shaqeyso oo vitamin D-gii loo baahnaa jirka maaragtay uu u qaato
qoraxda loo baahan yahay marka waxa waaye qoraxda marka waxa waaye dadkeena waa aragtay xijaabka horta waa wax fiican laakiin waxa waaye dhar badan oo kale la qabaa dharkaas badan waxaa suurtooda inuusan u gudbin gudaha marka waxaa suurto markii qorax jirto qofka intuu dharka iska yareeyo ayuu qoraxda isu dhigi karaa marka waa laga heli karaa qoraxdaas iyo maaragtay iyo cuntooyinkaas markii la isku balance gareeyo oo la cuno yani waa laga heli karaa vitamin D sigaarka dadka caba oo halis u yihiin dadka neefta qaba halis u yihiin dadka oo qaba maaragtay chronic pulmonary obstructive disease waxa la dhaho OCPD kaas isagana halis u yihiin wixii sanbabka ka jirana awal neef ha qabo TB ha qabo yani cancer sanbaba ha qabo waxyaalahaas oo dhan dadkaas halis u yihiin yani maaragtay marka waxa waaye neefsashadii baa yaraanaysa marka waxa waaye saasa ventilator iyo waxaas ay ugu baahnaanayaan marka waxa weeye halis u yihiin dadkaas sigaarka cabo iyo dadkaas oo maaragtay sanbabkada ka jiran iyo neefta qaba iyo caruurta markaanu fiirino sida ugu dhici karo way yar tahay alxamdulilah laakiin haddii ay la joogaan waalidkii qabay oo waalidkiina karantiin isku sameeyay laftiisii ama uusan isu gudbinin xarumaha caafimaadka ah ee sameeya karantiinka sameeya haddii isu gudbinin wuu ku dhacaa laakiin bifadlillah ayaga waa statistically boqolkii qof oo caruur ah in hal ku dhaca ay u baahan tahay wax badan ma aha inta badan marka dhimashadan way yartahay caruurta laakiin iyaga marka maadaama difaacu iska fiican yahay ay korayaan caani badan cabayaan ay la soconba waxyaabaha magaalada iyo adduunka ka jira oo ay nolol free isaga nool yihiin marka difaacooda ayaa aad u sarreeya marka difaacooda uu sarreeyo way ka badbaadayaan insha Allah tacaala marka dadka hadda inta badan u dhimanayo caalamka ee dhimashada ay maanta aad u sii kordhayso waxay u badan tahay dadka da'dooda ay soo kortay haddana qaba xanuuno kale ee u saamaxayo in macna dhibkaas uu sii kordho waxa weeye horta cudurkan waa cudur aad u fida cudur waxa waaye wuxuu ku fidayaa taabashada wuxuu ku fidayaa hindhisada iyo qufaca wuxuu ku fidayaa maaragtay isu dhawaashaha marka waxa waaye la ogaaday inuu 2 usbuuc gudahood qofka uu ka soo bixi karo maanta hadda qof adiga jiran aad la kulantid maaha isla markiiba inuu kugu soo boodayo waxay qaadanaysaa 2 weeks symptomihiisu kugu soo baxo 2 week baa ugu dheer intay qaadanayso marka in la karantiino dan baa ku jirta haddii kale waxa weeye hal qof wuxuu qabanayaa wuxuu qaadsiin karaa ciddiisa keliya maaha hadduu xataa meeshuu ka soo adeeganayo iyo hadduusan iska dhowrin meeshuu ka shaqeeyo hadduusan iska dhowrin oo aan laga xirin waxaa suurtooda inuu maaragtay cudurkii sii faafo marka cidda keliya ma ku ekaanayso waxay ku ekaanaysaa haddana magaaladu dhan bay uu gaarsiin karaa yani intii uu la kulmay isagoo qabo buu gaarsiin karaa sidaas daraaddeed bay waxay u tahay wax lagama maarmaan ah in qofkii lagu arko oo contact la sameeyo qof jiran in la xiro oo 2 usbuuc la karantiino waa wax meesha ku jira oo loo baahan yahay oo aan laga maarmin ya marka waxa waaye lama sii deyn karo oo bulshada laguma sii deyn karo iyagana lama dhihi karo dadkiina ma qabaan cudurka ilaa 2 usbuuc ma ka soo wareegan 2 usbuuc markay ka soo wareegato unbaa la ogaan karaa qofku inuu wax qaadsiinaynin iyo inuu qaadsiinayo teeda kale stigmada bahalka baarista waxa waaye waa importante waxay important u tahay yani waxa la ogaanaya percentage-ka area-daas ka jirta ama magaaladaas ka jirta ama regionkaas ka jirta inta qabta baa la ogaanaya si markaasay percentage-kaas halis uma aha dadka yani waa lagu soo dhexsii deyn karaa oo shaqadii waa loo furi karaa haddii la arko laakiin inuu percentage-ki badan yahay oo dadkii qabay ay badan yihiin meesha ka soo baxdo markaas waxa waaye muddadii waa lasii dheereynayaa meesha karantiinka ay ku jiraayeen waa lasii dheeraanaya marka waxaa la rabaa in la is ilaaliyo qofkii lagu sheego uu maaragtay iyo ciddiisaba inay maaragtay ilaaliyaan si maaragtay dhibaatooyinka badan oo uu leedahay maaragtay karantiinka looga si dhaqso ah looga baxo haddii kale waxa waaye wuu sii soconaa waxa mar walbaba haddii aan la iskontaroolin oo aan la iskala xayirin ka dhaqaatiir ahaan ka culimo ahaan ka waalid ahaan talooyinka annagoo aanu mujtamaca u jeedinayn waxaa ka mid ah please ka taxadir waxa kan waa naftaada walaa tulquu biaydiikum ila tahluka
ونفتاذا كبدبادي حنوكان إلهي سبحانه وتعالى ترساره لكن هدنا إناد إسهلتت مجمع قادة تلوين كان سو جيدنا إسكا إلالي إناد كم بالنقطة dadka isku imaanaya meesha jooga iska ilaali inaad aadan xirnin mask ay dhowr mask ayaa jirto qaar qaali ah qaar dhexaad ah in 19 ka ugu fiican laakiin haddana qofka inuu xirto wuxuu ku fiicanaan karaa markuu xirto wuxuu sameyn karaa neefta duu afuufo kale ama tansiirkan oo siyaarka wax loo shidi karaa geedka u xiran haddii markaas uu afuufo ay hawada ka soo bixi kareen markaas safe waaye marka inuu maski uu 24 hours hajo gurigiisa ama hajo banaanka waa inuu macna maski xirto in maaragtay kala fogaashihii la ilaaliyo in gacmihii la dhaqaayay la ilaaliyo in maaragtay maskarada la xiranayo oo sanka iyo afka la xiranayo in la ilaaliyo waxaa dhacay dadku waxa arkaysaa isagoo afkii xiranayo laakiin sanka u bannaan yahay taasna ma laha sanka laga hindhisaa sanka laga neebsadaa oo wax laga qaataa marka sanka maaragtay halistiisa way badan tahay in labadaba loo xiray noqonaysaa inta oo maaragtay adduunka waa ka dhici jireen epidemiyaashan oo kaleeto fuluyaashan kale hore u soo mareen dad badanaa ku dhammaan jiray waxaa u malaysaa teknolojiyada iyo hadda inay maaragtay ka sarreyso waxyaalihii helidooda inay maaragtay ka sahlan yihiin waaga horeeto oo la heli jirin marka waxaa fiican in loo hoggaansamo oo la ilaaliyo arrintaas haddii arrintaas la ilaaliyo oo ah kala fogaanshaha in mar kasta uu ku dadaalo sanitizerka inuu isticmaalo muhiim dhexgalka inuu yareeyo haddii lacalla saamax Allah qofkii waxaa dhacday uu ku dhacay waa inuu qofka haddana joojiyo imaatinka dadka oo martida ah ee guriga soo booqanaya inuu total istaajiyo okay qof kaliya oo qabo ku yimaado dhibaatada qayb ka tahay marka waa inuu martida iska joojiyo waa in macnaha duruusaha guriga ka socdo oo dadka oo imaanayaan oo kale uu yareeyo ama joojiyo online cid ku baran karto waa okay marka family kasto in iyaga isku koobnaadaan gacmaha dhaqidooda yani qofkii jiran oo gurigiisa isku karantiina oo intuu yani ka soo boskoonayo oo gurigiisa ku jiro waa wax important ah haddii marka la saamax Allah ay dhacdo family mid kamid ah waxa ku soo rito oo kale oo isku arko kale urkii oo waayo qanda badan murq xanuun qunfac tada kale cudurkaanayto cudur oo dilaa oo waayahay laakiin waxa waaye 80% dadka waxa waaye wuxuu ku marayaa isagoo qofka dareemin hal cudurkii waa qaba laakiin wax jirra kuma qabanayo wuxuu noqonayaa nin oo sida caafimaad qaba 17% jiru ku qabanaa waxa aad u wanaagsan laba option inuu mid qaado option ah inuu systemka caafimaadka wargeliyo oo marka iyagu xaalkiisii uu dhiibo si uu ummadda u sameeyay option kale waa inuu guri qol ah ka mid ah oo isku soo xiro uusan 14 days uusan ka dhex bixin ilaa symptomiga iyo calaamooyinka uu isku arkay ay ku baaba'aan waxa marka sabab u noqonaysa markaasi waa inuu isticmaalo dawooyinka anti pain killerka ah isticmaalo paracetamol inuu isticmaalo waa inuu isticmaalo waxyaabaha dadka qaarkood waxay sameeyaan daawad oo kale waa ogolnahay cidiisa ma jiraan dad waxay sameeyaan qaar is-uumiya qaarka iyagoo maraqa iyo sanjibiilka iyo waxyaabaha aad u kulkul isticmaalayo kale way tala fiican yihiin way kaga bogsadaan jirrada ku qabto waxa waaye haddii uu arko inay naftu gurigu isku ilaalinaya gurigu joogaya wuxuu iska cunayaa maaragtay wixii oo xanuun baabiye qufaca wixii loo cabaya allergy hadduu ay allergiga uu daawo allergy uu qaadan karaa daawo oo xanuun baabiye uu qaadan karaa wixii yaala kale oo annaga ay sunnada iyo noo sheegayso oo la qaato oo geed kuleel iyo waxaas hadduu rabo iska qaadan kara haddaynan dhibaynin laakiin waxaan rabaa inuusan dadkii dhexgelin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in adiga difaacaaga uu aad u koreeyo hadduu difaacaaga uu soo xoogaysto uu soo kordho way adkaanaysaa markaas in macnaha oo cudurkii kugu sii jiro marka haddii marka karantiil uu asiga isgeliyo uusan guriga ka bixin oo qolka aan loo soo gelin isna uusan u gelin ayaga uusan kulan la yeelanin suuragal waaye in macnaha cunada la soo dhiibo oo kale waa muhiim waaye waxyaabahaas laakiin aan sheegay inuu badsada ayaa aad wanaagsan difaaciisa u soo kordho qandajibintan uu ku dadaalo haddii markaasi ay dhacdo neefta aad u dhibto oo kale ay suuragal u noqon weyso inuu guriga soo jiro markaas kale waxa ku qasban yahay inuu u soo gudbo xirooyinka kale si marka oxygenkii iyo wixii loo siiyo insha Allah taala waxaa soo haray 3% ama 2 iyo bar ama 3 baa u dhimata
dadkaasna waa u badan yihiin dadka jirro horey u qabay oo ama asma qabay, kansar qabay, sanbabka ka jiranaa, TB ku xumaatay, waxyaalahaas oo maaragtay laakiin malaka moodnan waa iska imaan karaa qof aan waxba qabin oo maaragtay oo iska dhintay oo cudurkii markiiba uu dilay waa suurtoodaa. waxaana la isku raacay xataa inuu infection badan uu sanbabka ku sameynayo oo xataa uu maaragtay xididada dhiigga yaryar oo xirxirayo oo maaragtay qofkii uusan maaragtay neefsan karaynin markaas u baahanayo in neefti laga soo saaro xididadaasayto oo xirmay oo dhiigga ku xirmayna wax ka furfura iyo waxaasayto. marka boqolkii saddexdaas aad u jiran inay takhtar la xiriirto oo maaragtay takhtar loo geeyo, isbitaal la geeyo, guriga lagu haysan baa fiican. laakiin inta kaleeto oo boqolkii 80 iska caafimaad qabo oo cudurka laga helay 2 sano ka bacdo ka soo baxaya dibadaha xataa dadka haddaad la hadasho hebel waa laga helayo guriga qofkii tiisi gashay unbaa tegaya. laakiin waxa waaye in la ilaaliyo iyadana aan la sii fidin. qofkii wuu sii fidinaya laakiin caafimaad uu qaba boqolkii 17 xoogaa uu xanuunsanayaa, bronkiiti iyo waxaasaa ku dhacayo, daawo u baahan yahay. boqolkii 3 waa u dhimanayaan oo cudurro kaleeto oo saacideynayo oo qofkan dadejinayo ayuu qabaa. marka waxaan kula talinayaa in la is ilaaliyo, wixii nala farayna aan yeelno oo ahayd kala fogaashada, gacmaha dhaqidooda, darishadaha in la furo guryaha haddii qofka uu qufacayo uu joogo, dadkii kaleeto in maaragtay qofka xataa ciddi uu joogo uu iska xayiro, kuwa kaleeto caruurta iyo waxaas hadduu arko inuu isaga qufacayo tacbaan yahay inuu qol kulligiisa isku xiro, wixiisa loo geeyo, ridda loo dhigo oo aan la hagareen oo aan dadka dhan ay u tegin oo ay ogaadaan meeshii. haddii la hubsadana waaba la hubsada, haddaan la hubsanayo waxa ula ekaadaanna inuu is ilaaliyo laba usbuuc haddii wax badan maaha. waqtiga waa ordaya, markii waa dhammaanaya, in waxaa la rabaa oo la dul qaato oo la sabro. marka dadka waxaan ku talinaynaa inay qaataan awaamiirta iyo macluumaadka ay culimmada islaamkana ay siiyeen iyo dadka dhakhaatiirta ah ee iyagu sidoodaba khaas ku ah xanuunadan oo kale inay qaataan. haddii laakiin la qaadan waayo maxaa dhacaya marka? dhibka aarteen baa ka imaanaya. hadda maanta sidii aan joog lockdown baa la galay, meel kasta waa la xiray, cid is socon karta ma jiro. wadamada caalamka ah iyaga waxa weeye waxay suurageliyeen qofkii in gurigiisa wax loogu geeyo, laakiin hadda meesha annaga aan joogno wax ka suurageli kara maaha taas. marka dhibaato way sii badanaysaa. marka cudurkani waa dhibkaas iska haystaa. waxaan musiibo ilaahay la bari subxaanahu wa tacaala. xalaawadii macnaha hataa ramadaankii xataa waa u jeeday gurigeenu macnaha lagu soo xiray. marka gabagabadu waxa ay tahay ummadda shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan barnaamijkan fiirsanayso inaanay u qaadanin wax fudayd ah, inaanay fududaysan xanuunka. waa inay u qaataan si sax ah inuu yahay xanuun dilaa ah, kana taxadiraan kuna dhaqmaan dhammaan talooyinka soo faa ay culimmada macnaha ku taqasusay dhakhaatiirta ah ay warkooda maqlaan. ayna fududaysanin inaanay macnaha walaalkood kale ee xanuunka aanan qabinna inaanay u gaarsiin. haddii xanuunka adiga aad qabtid oo kale oo ilaahay subxaana wa tacaala kugu fitneeyey, dad waxaan maqalnaa dad kale macnaha ku talagalaya inay gaarsiiyaan, maadaama ani aan wuxuu leeyahay adduunkii baan ka tegaya yaan la joogin oo kale wax noocaas oo kale. marka xaastinida noocaas ma fiicna. hadday xanuunku ku haleelo meesha aad joogtid joog. haddii uu xanuunka magaalo kale lagugu sheego ha aadin. xanuunka meesha uu joogo mujtamaca joogana waa inay joogaan ilaa ilaahay subxana wa tacaala uu keenaayo. haddii aanay safarro ayna totally safarka ayaa mamnuuc ah. safarku waa mamnuuc, waa in la joogaa ilaa iyo xaalkan qof walba meesha joog ilaa xaalkan uu iska bedelayo oo arrinkan uu dib isu soo noqon doono insha Allah taala. waan dhacaysaa xanuunka kan maaha inuu iska socon doono sanooyin, ma aha bilooyin badan ma socon doono, lanna mar waliba xanuun kasta oo yimaado bilowgiisii wuxuu ku socdaa macnaha si aad u xawli ah, laakiin mar waliba uu socdo wuxuu gaari doonaa meesha ugu dambeysay uu gaari lahaa. wixii ka dambeysay waa soo degitaan. haatan waxyaabaha aan qiyaasayno sida aanu cilmiga uu noo sheegay ilaah baa subxaana wa tacaala, waxaan ku jirnaa dabaqaayadii maalmihii ugu dambeysay ayaan ku jirnaa insha allahu tacaala. oo hadda xoogaa haddaa fiirisid wadamada inta badan dhimashadii qaar hadda soo degayaan. marka dhimashadu laftiisa ha badato, laakiin muhiim waxa ah
كيسسك للرجسترالية محل إن هذا عالم كحوجة يصيران أيان لكن هذا أفريقيا إسمي صوماليا وتلسالي هذا صومالي جوتي بليز تقاتيرتا وعيجين تودا وزاد عفمات أونلاين ذا يكون ذان مقل قادو كدقن إن شاء الله تعالى هذه وبالله التوفيق إن شاء الله هذه هذا ما تسنتهي